ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ku soo biiray 2016 Abriil. Ujeedada ama muhiimadda aan ugu soo biirayna waxay ahayd anigoo arkay haween dhalinyaro ah oo aqoon leh oo aan jirin macnaa waqti xaadirkan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sisterteed waxaan doorbiday inaan ka mid noqdo ciidanka booliska Soomaaliyeed anigoo wata aqoonteeda. waxaan ahaa dugsi sare markaan dhameystay. kadib waxaan qaatay 2 sano oo tababar ah. waxaan helay xidigtan hadda maanta xidhanahay. welina waxbarashadeedu waan ku sii jiraa hadda jaamacadaan dhigtaa. waxaan rajeynayaa inaan meel fiican ka gaaro insha Allah. waxaan ka howlgalaa Muqdisho gobolka Banaadir. waxaan u qaabilsanahay qaybta ilaalinta cashuuraha. walaahi waxay igu dhiirigelisay maadaama doorkii haweenku ay ka seexdeen oo doorkii haweenku ay gaabsheen xaggii ciidanka inay ku aqoonta lahaa ay ku biiraan. anigu waxaan doorbiday inaan xubin ka mid noqdo ciidanka booliska Soomaaliyeed anigoo aqoonteeda wata. walaahi qofba level buu ka taagan yahay ciidanka. anigu waxaan rajeynayaa inaan noqdo waxaan rabaa inaan scoorka horta jabiyo insha Allah. waxaan rabaa inaan noqdo taliyihii ciidanka booliska ugu horeeyay ee gabar Soomaaliyeed noqota. waana habigayga. waana rajeynayaa inaan noqdo insha Allah. baahida horumarineed horta waxa weeyaan inaan sameyno community policing. macnaha waa inaan bulshada isla shaqeyno. mar walba aan bulshada isfahano oo isla shaqeynana waxa ay muuqanaysaa in doorkii aan rabay